diyaarad military oo Masar laga leeyahay ayaa soo gaartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ay siday gargaar isugu jiray raashin iyo dawo oo loogu talagalay in looga qayb qaato dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolada dalka jooga iyo caasimadda samata bixintooda nololeed. Mawlid Maxamed safiirka Masar u jooga Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Masar ay si laba jibaarayso gargaarka ay u hayso Soomaaliya gaar ahaan inta laga baxayo abaaraha. الذي حدث في الصومال خلال الفترة الماضية إن شاء الله خلال أسبوع أيضا تالي سيكون هناك مساعدات قادمة. نفس الطائرة أخرى ستأتي بمساعدات مماثلة. الذي حدث في الصومال خلال الفترة الماضية إن شاء الله خلال أسبوع أيضا تالي سيكون هناك مساعدات قادمة. نفس الطائرة أخرى ستأتي بمساعدات مماثلة. wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya Dr. Rayso Fawziya Abuukar ayaa sheegtay in deeqdan ay wax badan ka bedeli doonto dadka la dhibaatoonaya xanuunada kala duwan ee abaartu sababtay. walaalaheen dawladda Masar oo noo soo gurmatay aanan ahayn markii ugu horeysay inoo soo gurmato waa ku mahadsan yihiin. Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ka abaal mariyo jasa mariyo cid walba oo noo soo gurmata ama gacan noo fidisa waqtigan abaaraha ay taagan yihiin si Soomaalida dhibboon ee abaartu saameysay wax loogu gudbiyo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Ilaahay ajar ha ka siiyo. waa mahadsan. kulanka wafdiga Masar looga gudoomayo deeqda raashinka iyo dawada isugu jirta waxa goobjoog ka ahaa guddiga abaaraha ee dawladda Soomaaliya iyo wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka. Cilmi Cumar Caynsane wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan si degdeg ah looga qaybin doono deegaanada abaartu hadda ay ku jirto iyadoo si gaar ah loogu eegi doono dadka abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen. deeqda raashinka iyo dawada ay noo keeneen waxa weeye deeqdii ugu horeysay ma noqon doonto insha Allah sidii noo ballan qaadan inay noqon doonto deeqyo kale oo isdaba joog ay keeni doonaan. ka wasaarad gargaar ahaan waanu ka gidoonay waana kala wareegnay waxaan insha Allah rajaynaynaa dadka abaaruhu saameeyeen iyo dadka dhibduhu qaba inaan insha Allah tacaala gaarsiin doono anagoo mar walba u khidmayn doona dawladdan hoggaankeeda uu ku hawlan yahay sidii dadku uga bixi lahaayeen abaaraha iyo dhibaatooyinka saameeyay. Masar hadda waxay doonaysaa inay xiriir dhow la yeelato dawladda Soomaaliya si xuruufo ay uga hesho xiriirka aan wanaagsaneyn ee u dhaxeeya dawladaha Masar iyo Itoobiya. Calaadin Muumin, Goobjoog, Muqdisho.